فر الحمد لله هدان كفري جيبكاد كله ليس هدان كفري مدحاتك كشي هدان كفري الحمد لله هدان كفري بوقات بدس هدان كفري سيكي فاميلي meel kasta adduunka ka joogtaan sida ciwaanka ku soo aragteenba waxaan rabaa halkan my brother Daahir Cali Sow in halkan aan laba ka iraado dabcasirow labadan friends waaye hooyadin iyo friendskeedaba was fanka Soomaaliyeed dhulka ka qaado aan kor aangi taataniya social media ku sameeyay sideeda bataataniya ku soo galiyay hadii aan daawaday oo fiidiyoshad aan fiiriyay oo aan arkay waxa ay soo baxday fankii Soomaaliyeed sarafkiisa sumcadiis in lagu ciyaaro meel looga dhacay abaha ya istikaaba was tugtug dhala ahmaq aqdeer baadkiiri Allah abura wallah daawateen waxay ahaayeen bilow ay ahaayeen sniper labo inaan ka iraado halna inaan ka iraado shacab weynaha Soomaaliyeed qaasatan CK family waxaa jira video aan aniga iyo Ken Arash ku jirno oo aan sameeynay music challenge gaasna mid aniga aan keenay ayuu ahaa waxa ay ahayd markii aan ku qabanayay showga Kismaayo waxaan joognay Cariga iyo Soomaaliya qaasatan Kismaayo ayaynu joognay Jubbaland showgii Kismaayo ayaan qabanqaabinaynay waliba waxaan ku sugnayn xarunta ama hoolka uu showga ka dhacayay ayaanu eegayno qiimeynayna dhex joognay waxa socotay marka arin ahayd marka in TikTok ay wareegaysay astaghfirullah intaan ku jeclaa aniga oo marka joog ka sameynaya ayaan aniguna waxaan keenay in aan iraado alxamdulillah hadaan ku furay deedna intii ayaa gadantay oo TikTok ka gadantay oo intii ayaa wareegaysay oo waxa noqotayba hees ka mansuuna oo aniga iyo Ken Arash aan soo wadno waxa ay wala jiray muuqaalka oo ii hoorinayay Ken Arash ayaa ay wala jiray iyo fanaan kale oo isagana aan wada taqaanaan my brother Sultan Safi haddaba muuqaalkii ayaa hadda dib loo soo cusboonaysiiyay oo aan arkay ayadoo la wadwado muhiimadeeda ma ay ahayn marka dadka wadwaday Daahir Cali Sow oo aad wada taqaanaan oo legendary ah ayaa shalay arinta ka soo hadlay waxaan arkay marka inuu muuqaalka soo qaatay oo video ku hadlay ku soo dhaxdaray marka Daahir Cali Sow ayaan rabaa in aan iraado laba mid Daahir oo muuqaalkaas soo qaadatay hadii ay ka ahayd ogaal la'aan macnaha in muuqaalkaas uu mid hore yahay uusan haddaba ahayn intaan guursanin ka hor inuu muuqaalka ahaa hadii aadan ogeen waxaan ku leeyahay ogaal uma lihid oo qalad kuma lihid hadda se ogow muuqaalkaas inuu yahay mid inta aan aniga guursanin ahaa سبسكرايب مال لو شيك سبسكرايب انا ساعه حافظها ku cusbahay cidaas ma qanaan cidaas سبسكرايب wali waxa macquul meelahaasi xafaas laga ma hale ana wali سبسكرايب مش يكرنا ملاس كيشين عيد كم ودين انا عيد كم ودين محمد مركز سبسكرايب عيد كم ودين سبسكرايب الفيديو Somalia we love you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام أصحابتك حرسهم وفيم أوفيشال أصحابتي اللي جوجت هذا وما ستي اللي جوجين وقروح بها أصحابتي وعصب محلية بليز سبسكرايب لايك كومنت شير فيديو شير كري أصحابتي اللي وداقة بعد السلام أنتم حايدين وضع وحوا ما وضع ديال عصب هردع وسو أركتين دهر على سو يسيكي iyo Shiin Culey iyo Ayub Carlo iyo Manaal waxa waay horta waa taqaaniin kale Manaal waxa waa ex naagtii hore u furay CK marka alamstaan CK oo lagu haysto ereygi ahaa hadaan ku furay alxamdulillah jeebka kula leys alxamdulillah subhanallah ereygaas CK hore u dhahay waa too had u dhahay maahan ereygan wuxuu dhahay xiligu Soomaali joogi uu shoogu ku qabanay Kismaayo laakiin social media haduu qabsaday teeda kala qaf markuu caan noqonaayeen wax badan uu ku soo caan baxa wax wanaagsan iyo wax xunbo CK gabadha uu furmanaal oo hadeertan ku soo caan baxday inay marba qaf u tagto mar waxa la joogto Ayub Carlo oo macaarad isku ahaayeen CK oo iyada hore u furay marna waxa la joogto Shiin Culey oo asigana bardo macaarad isku ahaayeen waxa halkaas dheer wiil kale oo asigana CK saaxiib dhow ahaayeen oo xataa CK dhahay number 3 oo social media xataa waa haya u yaqaana ala kulli xal bini aadan iska bini aadan teeda kale ee Manaal waxa waay horta kornaageedka bash isma dhaamo kole warka ma ku dheeraaha please subscribe ka isaar laagta isi dhaha CK family meel kasta adduunka ka joogtaan sida ciwaanka ku soo aragteenba waxaan rabaa halkan my brother Daahir Cali Sow
in halkan aan laba ka iraado labo inaan ka iraado halna inaan ka iraado shacabweynaha Soomaaliyeed qaasatan CK family waxaa jira video aan aniga iyo Ken Arash ku jirno oo aan sameeynay music challenge gaasna mid aniga aan keenay ayuu ahaa waxa ay ahayd markii aan ku qabanayay showga Kismaayo waxaan joognay Cariga iyo Soomaaliya qaasatan Kismaayo ayaynu joognay Jubbaland showgii Kismaayo ayaan qabanqaabinaynay waliba waxaan ku sugnayn xarunta ama hoolka uu showga ka dhacayay ayaanu eegayno qiimeynayna dhex joognay waxa socotay marka arin ahayd marka in TikTok ay wareegaysay astaghfirullah intaan ku jeclaa aniga oo marka joog ka sameynaya ayaan aniguna waxaan keenay inaan iraado alxamdulillah haddaan ku furay deedna intii ayaaba gadantay oo TikTok ka gadantay oo intii ayaa wareegaysay oo waxay noqotayba hees ka mansuuna oo aniga iyo Ken Arash aan soo wadno waxa ay wala jiray muuqaalka oo ii hoorinayay Ken Arash ayaa ay wala jiray iyo fanaan kale oo isagana wada taqaanaan my brother Sultan Safi haddaba muuqaalkii ayaa hadda dib loo soo cusboonaysiiyay oo aan arkay ayadoo la wadwado muhiimadeeda ma ay ahayn marka dadka wadwaday Daahir Calasow oo aad wada taqaanaan oo legendary ah ayaa shalay arinta ka soo hadlay waxaan arkay marka inuu muuqaalka soo qaatay oo video ku hadlay ku soo dhex daray marka Daahir Calasow ayaan rabaa in aan iraado laba mid Daahir oo muuqaalkaas soo qaadatay hadii ay ka ahayd ogaal la'aan macnaha in muuqaalkaas uu mid hore yahay uusan haddaba ahayn intaan guursanin ka hor inuu muuqaalka ahaa haddii aadan ogeyn waxaan ku leeyahay ogaal uma lihid oo qalad kuma lihid hadda se ogow muuqaalkaas inuu yahay mid inta aan aniga guursanin ahaa oo hadda TikTok wareega oo Daahir Calasow oo xataa uu soo qaatay uu ka hadlaa ilaa YouTube meelaha dhan social media ala kul xal wareegayo videogaas had ma ahayn video mar hore uu ahaa qafkii hadda u maleynaan bil qalad uu fahmeen marka waxaan leeyahay horta Soomaalida oo warka jecel dadka isdagaalsanna aad ugu dhex faa'iideysto arintan dhexdhexaad ka ah aslaan asxaabtii waxay dhexdhexaad noqon markasto dhexdhexaad ahay laakiin CK warkaan hadda ma dhihin warkaan wuxuu yiri mar hore ahayd xilliga uu Muqdisho joog uu soo dhigayo maho marka yaa hadalka loo bedelay wiilka maskiinka ah marka CK si loo maleynay ma ahayn asag naftarkiisa badaacad waaye ule asxaabta marka waxaad leeyahay videogeedii aad ka hesheen please like ida share ida subscribe kan isaara marka comment ku dhigleer idinkan comment wax la iska soo qora maniga xanaaqay waadan jeclahay badana waxaan soo qaata walba comment-yada dadka isoo caayo ma ahayn dadka isoo amaan xataa comment-yada soo qaato hadii isoo caayidin comment-yadina waan soo qaadaa insha Allah waan akhriyaa comment-yadina dhiirigelinay ii tahay isku day inaad comment isoo qortaan markasto wax kasta wuxuu noqdo xataa keep going xataa hu wax la soo sheega bas muhiimadu waxa waaye inaad comment soo qortid fikirkaaga saliimka meesha ka dhiibato markaas xaabta salaamo dhamaanteed jeclahay saay nabadgelyo fi amaan Allah subscribe ku wadhankiina meesha iga soo dhisa salaam alaykum